السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرن جنالكينا xogaha media kusoo dhawaada barnaamijkeena oo nooga hadli doona taariikh kooban oo aan ka soo aruurinay wariyaheedii weynaa Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke. Axmed Xasan Cawke waxa uu ku dhashay magaalada Togwajaale ee gobolka Waqooyi Galbeed 1943. Axmed Xasan Sheekh Suufi oo loo yaqaan Axmed Xasan Cawke waa suxufi Soomaaliyeed oo raantii 1970 ilaa 2015 ka shaqeynayay warbaahinta Soomaaliyeed iyo mid reer galbeedka intaba. Waxbarashadiisii 1960 ayuu dugsiga hoose ee ku yeelay isla magaaladii uu ku dhashay ee Togwajaale ayuu waxbarashadiisii asaasiga ahayd ka bilaabay. 1964 waxa uu dugsiga dhexe ka bilaabay deegaan lagu magacaabo Cadadley, halkaas oo uu ku dhameeyay waxbarashadiisii dugsiga dhexe. 1970 ayuu galay dhameeyayna dugsigiisii sare oo ahaa Camuud, kaasoo ku yeelay magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waana halka haatan ay jaamacadda Camuud ku taalo. hase ahaatee markii uu taas idleystay ayuu isla 1970 bilaabay waxa loo yaqaanay adeegga qaran ama National Service. meeshii ugu horeysay uu ka shaqeeyay suxufiyan waa Radio Muqdisho, halkaas oo markii uu ka bilaabay tibintiisii aadka loogu riyaaqay. barnaamijyadii uu ku lahaa Radio Muqdisho ayay dhageystayaasha si gaar ah u xiiseyn jireen, sababtuna waa habtabintiisii macaaneyd iyo cod gaarka ah ee guuxa uu lahaa ee Cawko. yanaan kaliya ku ducayn saaxiibayaal daawadayaal, qof walowba fadlan sheekada aan soo wadno si fiican u dhageyso. tartanno iyo heeso iyo qosol ayuu isugu jira barnaamijkeenan. tartanka noo soo socda oo noo saaraya waxa weeye sheekaanu akhriyana. Soocan bixidii wariyihii Axmed Xasan Cawke waxa ay timid markii uu qabtay barnaamijyo idaacadda TV-ga qaranka laga sii deyn jiray 1977 kuwaasoo looga soo horjeeday haysashada Itoobiya ee dhulka Soomaalida laguna taageerayay dagaalkii ay dawladda Soomaaliya ku qaaday Itoobiya. waana halkii uu ka raacay magacii dheere ee 40 sano ku raaxaysanayay. Axmed waxa uu ka qayb qaatay shaqooyin kale oo qaran oo aan ahayn warbaahinta, oo waxa uu macallin ka soo ahaa magaalada Berbera isla horaantii 1970 taasoo uu bilaabay markii uu dhameystay tababarkii xalane ee la gali jiray markii la soo idleystay waxbarashada dugsiga sare. Axmed burburkii Soomaaliya 1999 kadib waxa saameyn fiican ku lahaa warbaahinta afka Soomaaliya ku hadasha, sida isaga oo wixii ka dambeeyay 1990 waqti dheer u shaqeynayay BBC-da laanteeda afka Soomaaliga. idaacadda codka Mareykanka ee VOA ayuu 2008 kadib la shaqo bilaabay, iyadoo uu markaa kadib ka soo hormuuqday TV-yada ay Soomaalidu leedahay sida Universal TV, Home Cable iyo SLN TV. waa nin codkar ah, maad badan marka uu tabinayo kana hadlayo barnaamijyada fanka, siyaasadda iyo ciyaaraha ka wada fiicnaa. waa haybad ay Rabiye. waxa uu sidoo kale ka soo shaqeeyay telefishinka Soomaaliya, kadibna waxa uu noqday afhayeenkii madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre ilaa burburkii Soomaaliya sanadii 1991. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu shalay galabnimadii si rasmi ah u soo gabagabeeyay aqoon-is-weydaarsigii maalmahanba u socday culamaa u diinka Soomaaliyeed oo ka kala socday dhammaan gobolada iyo degmooyinka waddanka Soomaaliya uu ka kooban yahay. waxaana oo aqoon-is-weydaarsigaasi socday bishan aynu ku jirno 1 ilaa 25 waxaana muxaadarooyin ka jeediyay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dalkan Soomaaliya. way aragnimadiisii iyo shaqadiisii 1971 ilaa 1972 ayuu Axmed Xasan Cawke ku jiray qabashada adeegga qaran ama National Service, isagoo macallin ka noqday magaalada Berbera ee gobolka Waqooyi Galbeed. 1973 horaanteedii ayuu Cawke shaqo ka bilaabay Radio Muqdisho, iyadoo uu markii dambena door weyn ku lahaa barnaamijyada TV-ga qaranka ee Soomaaliya. 1980 Cawke waxa uu noqday wariyaha gaarka ah ee madaxweynihii dalka Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay. 1996 ayuu ku biiray BBC-da laanteeda afka Soomaaliga, halkaas oo uu ka shaqeynayay ilaa 2008 idaacadda codka Mareykanka ee VOA ayuu ka shaqo bilaabay ilaa markii dambe uu ka soo muuqday TV-yada afka Soomaaliga ku hadla sida Universal TV, Home Cable TV iyo SLN TV. Axmed Xasan Cawke waa nin inta badan lagu tiriyo wariyaasha ku fiican dhanka majaajilada weecsan, waayo waa nin aad iyo aad ugu hadla afka Soomaaliga, adeegsadana oraahyo inta badan la jeclaysto. dhammaan baaqiyaadka awooda laga dhageysanayay waa mar kale iyo barnaamijkeena caawiya caalamka qodobadaan idin ku hayana waxa kamid ah
xamaro xaaladeedu alluu sahal tahay dhaawaca dadka oo markay cisbitaaladii qaadi waayeen dhirta hoos yaalla maydka oo markay xabaalihii lala gaadhi waayey bannaanada kale lagu aasayo qulqulka dadka naftooda la baxsanaya oo u kala jahaystay jidadka waqooyi iyo koonfur uga kala baxa magaalada muqdisho xaaladda guud ee muqdisho waa sidee iyo caalamka dhimashadii Axmed Xasan Cawke allaha u naxariistay Axmed Xasan Sheekh Suufi Cawke waxa uu 17 November 2015 ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaalida Ethiopia isla maalinkaas ayaana lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Togo Jaale geeridiisu waxa ay keentay inay warbaahinta Soomaaliyeed weyso xubin aad muhiim ugu ahayd